جزاك الله خير الجزاء وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك. الله سبحانه وتعالى وحن كوي دينا يكون رجينا يا إنه يوم لا ذل إلا ذله إن حرسته هوس كربي سبحانه وتعالى وأنا جرين هوس كله ما ننتهي قيامة إن شاء الله بإذن الله الكريم. الله لو قدر يكون ودم بدعفي سؤال شكل واحد هاي قبر أيا واحد لا هاي شيء قو منك يجو واقع وحنا يقول الماما إن نزلسته مدة كلا واحد وعيا أي لا هاي لبدي الوالد hooyaday guriga way ka gooday oo hadda ma timaado marar badan ayay dhagaheeda ku maqashay hadal aan wanaagsanayn oo ka yimaada ninkeyga oo aan waliba aad u jeclahay. waxaan ka codsaday waxa aniga isagana dhaxmaraaba waxay doonaan ha ahaadaan laakiin inuu san hooyaday iyo waalidkay u gudbin laakiin arrintaas dhagaha ayuu ka furaystay oo ma uusan dhageysan. waxaan maqlay in 4 marqaati loo baahan yahay marka qof lagu eedeynayo zino. sidaas darteed shiiqow markii arrintan ay soo badbadatay waxaan iska go'aansaday inaan ninkan guriga ka eriyo maadaama aan qurbaha joogo awoodna aan u leeyahay inaan ka joojiyo inuu guriga yimaado. hadda waa bannaan joog ilmihiina aniga ayaa kala geeyay. maxaad igula talinaysaa ayay ku leedahay sheekhu al-faadil falyatafaddal mashkuran wa majura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد waxaan kugula talin lahaaba adiga tasarrufay hadduu ninkii guriga joogi lahaa oo aad dhihi lahayd ninkii gurigu ii joogaa dhibkana waa i haystaaye maxaad igula talin lahayd waxbaan ku dhihi lahayn laakiin adigaa tashaday ninkiina waa bannaan joog baa tidhi ilmihiina waan haystaa talow taladadii weydiin marka maxay tahay marka su'aal kale hadday jirto waan jeclaan lahaa in loo gudbo. واتهي شغل الفاضل جزاك الله خير واحسن الله اليك وغفر الله ذنبك. waxay leedahay gabadhan waxay leedahay ninkaygu waxa aan ku kari lahaa ayay tiri salaada 2 cunug ayaan u dhalay waxa uu diiday inuu tukado wuxuuna had iyo goor iska aadaa meelaha lagu qayilo marfaqjada ah wuxuuna diidan yahay inuu ilmaha ila koriyo. markii aan arrintaas weydiiyana wuxuu yiri salaada ilaahay baa ugu leh markii ilaahay isoo hanuuniyana waa tukan doonaa adiguna wax dan yahay la ha u gelin ilmaha aan wada korsano. shukran al-faadil maxaad igula talinaysaa ayay leedahay. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد تارك الصلاة إلهي تبارك وتعالى قرآن كأيو نوو شيغي قبل مسلمة نين تارك الصلاة كما مهرسنتو مالكو قرأ قبل مسلمة نين تارك الصلاة كما مهرسنتو سيدا درادت تارك الصلاة كل بحالة مدوي يا إما inuu uga tegayo kasalan iyo caajis iyo wax lamida iyo waan tukan doonaa inuu uga tegayo iyo inuusan mataqaanaa diidayo oo salaadba layguma laha uu dhaho labada waa mid saddexaad ma jirto. midda hore hadday tahay culummadu waxay isku khilaafeen ma 3 jeer baa la weydiinayaa war tuko mise 3 maalmood baa jaaris la siinaya inuu tukado laakiin taariku salaad noolaanaya 3 maalmood adduunka ma jiro. taariku salaad 3 maalmood kadib hadduu tukan waayo noolaanaya ma jiro. kaliya waxay isku khilaafeen ninkani maxad baa loo dilayaayo waa caasi muslima oo qubuuraha muslimiintana waa lagu aasayaa islaantii waana la dhaxlayaa oo waa qof muslima mise ridda iyo gaalnima loo dilayaa. kaasi horta waa qodobka labaad ninka dhahaanu salaad ballayguma laho biittifaaqi almuslimiina waa murtad gabadh muslimadana kuma meersanto. ragow yaan la khaldamin diin baan leenahay caqiidaan leenahay salaadu gorgortan ma gasho. gabadh muslimadaba meel igu xaraysnaani gabadhay salaadayda shaqo kuma lihid adiguna waan kugu raaxaysano waan kugu tamatuci kaas iyo kale dheeri wey waana jahli bicaynihi wey gabadhana jahli waa diinta ka haysta. saadaradeed ninkaasi culimada uge cajalada u keen ha tukado salaada hadduu tukan waayo oo dhow ma tukanayaay nin taariku salaada gabadh muslimada kuma xidhanta wallahu aclam.